مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعلهم في الوفاء كان في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. weli waxaan ku guda jirnaa barashada MS Word. waxaan rajeynayaa in ardada Soomaaliyeed ama qof walba oo Soomaaliya in uu ka faa'iideysan doono casharka MS Word-ka. maanta hadda waxaan qaadan doonaa hadduu Ilaahay idmo sida aan u samayn karno table. waxaan rabaa table inaan sameeyo qofka magaciisa inuu ku nool yahay, for example ama table of waxaan samayn karaa education ah oo ama school ama jaamacad ahaato. marka sidee aan ku samayn karnaa? waxaan rabaa sidee aan ku samayn karnaa table. So let's go. marka waxaan sameynaa marka table marka aan rabnaa sameeyno kow waxaan tagayaa insert ayaan tagayaa. kaliya markaan siiyo waxaan dooranayaa meesha ku qoran tahay table ayaan asana click siinayaa. then waxa ii soo baxay marka insert table. inta u baahanahay tablada u baahanahay ayaa ii soo baxay. haddii aan u baahanahay inaan saddex ka dhigo oo kolomad ah waa ka dhigi karaa oo afar aan ka dhigi karaa. so hadda marka waxaan ka dhigayaa saddex ayaan ka dhigayaa the first cover waxaan gelinayaa for example number kan waxaan ka dhigayaa name, kana waxaan ka dhigayaa mobile number kan kale waxaan ka dhigayaa for example salary waa mushaarka for example. marka numberka maadaama sabxadan oo intaan naga weyn tahay waa soo yareynaynaa oo markaan soo yareynaynaa saasaan ka dhigaynaa. markaas aan ka dhigano 1 aan ka dhigaynaa, 2 aan ka dhigaynaa, 3 ayaan ka dhigaynaa, 4 5. so markay saas ay tahay highlight ayaan saaranayaa, waxaan ka qaadayaa underline, kadib name waxaan ka dhigayaa for example ustaad Muhammad Ali. mobile numberkiisa waxaan roon gashanayaa +256. okay. salary markii Ustaad Maxamed Ali waa macallin kamid ah macallimiinta iskuulka. marka waxaan salary lacagta uu qaato mushaarka waxaan dhigaynaa laba mustacaan 350. laakiin marka 350 taas oo dadka u fahansiino dollar ahaan marka soo isticmaali karnaa. dollar waxaan isticmaalaynaa shift iyo waxaan qabanaynaa meesha ay ku qoran tahay laba mustacaan 4 korkiisa oo F4 ka hoostiisa lama ka 4 qoran tahay ayaan shift ku qabanaynaa. kadib waa kaas oo dollarka waan ka dhignay. okay. number 2 waxaan ka dhigi karnaa ustaad Hassan Ahmad. then numberkiisa gelino. okay. mushaarkiisa kadhigayna 250. ustaad Ali Abdi. numberkiisa intaan gelinaynaa. okay. mushaarkiisa shift 4 okay. ustaad Abdi Dahir. numberkiisa then lacagta uu qaadanayo waxaan ka dhigayaa 150. ustaad Umar Khaliif. numberkiisa okay. lacagta uu qaato shift
okay markay saan ay tahay oo table-kii waa sameeyay oo table-kan sameeyay waxaan rabaa inaan design-kiisa xoogaa ku laabto inta ayaa la saarnayaa waxaan furinayaa design kadib midkaan rabo ayaan ka dhiganayaa intaan midkaan rabo ayaan ka dhiganayaa midkaan rabo taas ayaan rabo aniga daro highlight-kan ku celinayaa midkii kale aan leeyahay uu fiican yahay ayaan ka dhiganayaa so waa kaas marka waxaan rabaa marka inaan soo dhigo sawiraan soo dhigo sida sawirka loo soo geliyo documentiga ayaan idin maraynaa sidoo kale iyadana waxaan tagayaa insert main banaac ayaan click siinayaa and then insert ayaan tagayaa meesha ku qoran tahay picture then skitoobka waxaan dooranayaa sawirkan picture-ka logo iskuulka soo qaadanaya hadda ma qaadi karin kadaan qaada laakiin iska qaadana laakiin double click aan siinaya waxaan dooranayaa text wrapping and then waxaan dooranayaa in front of text marka daaro ma koraan geysanaya daaro koraan geysanaya simaya markaan simo okay haba inaan habeeyo okay waa ujeedaan sawirka picture-ka ayaan soo geliyo loogada iskuulka daaro sawir kale ayaan soo dhigayaa picture skitob then ujeedaan somaan oo kligaan siinaya text wrapping meesha ugu waxeeyo waa kaas soo yeelsanaya soo yeeleysto ujeedaan somaan saas waxaan ku sameynay table-kii aan sameynay picture-ka oo loogada iskuulka aan soo qaadanay kor aan saarnay iyo picture kale aan soo qaadanay sida picture-ka loo geliyay marka so intaas ayaan ku sameynaa hadduu alle idmo so marka qof walba waxaan rajeynayaa inuu ka faa'iidaystay insha allah casharadaas oo sii socon doonaan mar walba waxaan soo gelin doonaa waxyaalaha ugu muhiimsan oo documentiga aad ku baran kartid oo MS Word ku baran kartid ilaahayna gaarsiiyo maanta waxaa qaadateen sida table loo sameeyo oo sida picture loo soo geliyo insha allah qayb baan idin rajeynaynaa iyo isku soo noqon dambe insha allah